bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saaka idin haya waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo maamul cusub u sameynaysa galmudug iyo khilaaf cusub oo ka dhex bilowday hogaanka galmudug iyo madaxda dowladda Soomaaliya qaramada midoobe oo warbixin ay soo saartay ku sheegtay in al-shabaab horumar ay ka sameeyeen qaraxyada ay ka fuliyeen Soomaaliya kulan looga hadlayo siideenta Sheekh Mukhtaar Robow oo Baydhabo ka dhacay maxaa ka jira in warbaahin caalami ah ay fadeexaysay haweeney Soomaali ah wararka dibadda wararka TV saaka idin haya waxaa ka mid ah shaqaale u dhashay Ruushka oo lagu dhaawacay Yemen iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda Mareykanka iyo Iiraan oo cirka isku sii shareeraysa ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo fidsan dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in maamul kale ay u sameynaysa galmudug iyadoo khilaaf cusub oo ka dhex jira hogaanka galmudug iyo madaxda dowladda uu cirka isku sii shareeraya madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug ayaa maalmo ka hor hadalla kulul warbaahinta isku mariyay kadib fashilkii ku yimid shirki Garoowe wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug Maxamuud Aadan Cismaan oo loo yaqaan Masagawa oo ka qayb galay barnaamijka dooda BBC-da ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ku mashquulsan tahay in maamul kale ay u sameynaysa galmudug isagoona intaasi ku daray in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya dhaqaalihii ay ka goosteen galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Masagawa oo si hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya faragelin qaawan ay ku haysa galmudug isagoona sheegay in deegaano galmudug ka tirsan lagu sameeyay hogaan kale oo carqaladeynaya hogaanka galmudug wuxuu intaas ku daray wasiirku in dowladda federaalka ee Soomaaliya dhaqaalihii ay ka jartay galmudug isla markaana aanu ixtiraamaynin heshiiskii Jabuuti ee dhaxmaray galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa kaas oo lagu mideeyay dastuurka labada dowlad goboleed iyo baarlamaankii ahlu sunna iyo galmudug dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayr Maareeye oo ka qayb galay barnaamijka dooda ee BBC-da ayaa ka jawaabay eedeyntaasi wasiirka warfaafinta galmudug uu u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiir Maareeye waxa uu sheegay in heshiiskii Jabuuti ee la galay dabayaaqadii sanadkii 2017 iyadoo markaasi galmudug ay u dhiman tahay 2 sano iyo bar mana jirin warqad muddo kordhina ayaa u xusay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlayay eedeynta wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug uu u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiir Maareeye oo ka hadlay dhaqaalaha laga xanibay dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu sheegay in khilaaf uu ka dhex jiro hogaanka galmudug taasina ay keentay in dowladda federaalka ee Soomaaliya dhaqaalaha ay ka xanibto wasiir Maareeye oo si hadla waxa uu sheegay in madaxweyne Xaaf iyo madaxa xukuumadda iyo xubno ka tirsan baarlamaanka ay fadhiyaan dhuusamareeb isagoona intaasi ku daray in madaxweyne ku-xigeenka tiro xildhibaanaha iyo gudoomiyihii baarlamaanka galmudug iyana ay fadhiyaan dhinac kale iyadoo midka kale uu dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo dalbanaya dhaqaalaha lagu talagalay galmudug taasina ay keentay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xanibto dhaqaalahaasi warbixin ay soo saartay qaramada midoobe ayaa waxa ay shaaca kaga qaadeen ururka al-shabaab oo ka dagaalama Soomaaliya horumar la yaab leh ay ka gaareen sameynta qaraxyada kooxda al-shabaab ee Soomaaliya ayaa u gudubtay heer qaraxyada ay ku sameystaan gacmahooda sida ay shaaca ka qaaday warbixin ay diyaariyeen guddi khubaro ah oo ka tirsan qaramada midoobe taxliil lagu sameeyay shaybaar ayaa lagu ogaaday in isbedel weyn uu ku yimid habkii ay al-shabaab u sameysan jireen bambaanooyinka waxayna ka gudbeen in ay isku haleeyaan miinooyinka militariga waxayna u wareegeen in ay guryaha ku sameystaan waxyaabaha qarxa sida warbixin uu soo saaray guddi qaramada midoobe ka tirsan oo khubaro lagu ogaaday guddiga ayaa akhbaar ku helay in ururka al-shabaab ay gacmahooda ku sameystaan qaraxyada ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee Soomaaliya daraasadda ay sameeyeen guddiga qaramada midoobe ayaa waxa saldhig u ahaa 20 qarax oo waaweyn oo Muqdisho ka dhacay tan iyo bishii July sanadkii 2018 lama shaacin cidda taxliisha sameysay ha yeeshee dukumentiga guddiga qaramada midoobe ay soo saareen waxa ka muuqday oo lagu xusay hay'adda miina baarista qaramada midoobe Mine Action hay'adda FBI-da Mareykanka iyo hay'ado kale oo caalami ah al-shabaab ayaa markii hore isku haleyn jiray miinooyinka militariga oo ay dib uga farsameeyaan miinooyinkii iyo hoobiyaasha ay ka qabsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM balse waxay hadda gaareen heer ay si buuxda iyagu u sameystaan qaraxyada tani waxay u sababtay inay sare u qaadaan weerarada ay Muqdisho ka fuliyaan oo uu ka mid yahay weerarkii dhimashada badan geystay ee 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho khubarada ayaa muddo rumaysnaa in laga yaabay in al-shabaab ay mararka qaar adeegsadaan miinooyin ay iyagu sameysteen balse wax cadeyn ah
looma haynin ka hor taxliishan. waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka dhacay kulan looga hadlayay sidii loo sii dayn lahaa sheekh mukhtaar roobo abu mansuur oo ka mid ahaa hogaamiyaasha ururka al-shabaab oo ciidanka dowladda isagoo musharax madaxweynaha ay kasoo qabteen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftagareen iyo gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed cabdiqaadir shariif shiiquna maye ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay qaabkii loo sii dayn lahaa sheekh mukhtaar roobo abu mansuur oo ka dhacay magaalada baydhabo. kulanka oo ay ka qayb galeen waxgaradka, aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta reer baydhabo ayaa waxaa inta badan lagu lafaguray qaabkii loo sii dayn lahaa sheekh mukhtaar roobo abu mansuur oo weli u xiran dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo waxa kaga qorshaysan hogaanka maamulka koonfur galbeed. odayaasha ayaa la sheegay in madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay u gudbiyeen cabasho ku aadan in mukhtaar roobo uu muddo dhowr bilood ah xiran yahay iyadoo aan wax maxkamad ah la geyn, taasina ay dhabarjab ku tahay maamulkii shacabka koonfur galbeed. madaxda maamulka koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee baydhabo ku kulmay ayaa isku afgartay in si degdeg ah loo xalliyo arrinta roobo, dowladda federaalk ee Soomaaliya lagala hadlo qaabkii ay u sii dayn lahayd. sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer baydhabo ka dalbaday inay ka shaqeeyaan horumarka deegaanada maamulka koonfur galbeed. 13 bishii December ee sanadkii 2018 ayaa wadaadka roobo waxaa laga soo xiray magaalada baydhabo iyadoo diyaarad qaas ah lagu keenay Muqdisho kadibna lagu gudbiyay xarunta nabad sugidda ee magaalada Muqdisho halkaas uu ku xiran yahay muddo 5 bilood ah. warbaahin caalami ah oo saldhigoodu yahay dalka Australia ayaa fadeexa ka faafisay haweeney Soomaali ah oo 69 sano jir ah. qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa shaaciyay war ku saabsan in ruqsaddii wadista gaadiidka ee gudaha Australia lagala noqday haweeney Soomaali ah oo ka shaqayn jirtay gaadiidka taksida kadib markii ay ku tumatay shuruucda dalkaasi, balse isla haweeneyda warbaahintu ay eedeysay ayaa BBC-da la hadashay isla markaana beenisay eedeymaha warbaahinta gudaha ee dalka Australia u jeedisay. Xaawo Faarax Caad oo ka shaqaynaysa magaalada Melbourne ayaa lagu soo waramayaa in laga mamnuucay kaxaynta tagaasida, arrintaasi oo la sheegay in ay ku mutaysatay kadib markii sida la sheegay qof aragala oo soo raacay gaarigeeda ay weydiisay jihooyinka magaalada. waxaa kaloo oo la shaaciyay in si qaldan ay uga gudubtay calaamadda casaanka ee lagu talagalay in lagu hakado isla markaana ay diiday inay aqbasho ganaax lacageed oo lagu soo rogay. Xaawo ayaa lagu dhaliilay in tilmaan ay weydiisay qof aan waxba arkin, sidoo kale aysan aqoon u lahayn aaladaha casriga ee gaadiidka loo adeegsada ee dalkaasi. wararka dibadda, wararka TV saaka uu idin hayana daawadayaal waxaa ka mid ah shaqaale u dhashay wadanka Ruushka ayaa lagu dhaawacay wadanka Yemen. laba haween ah oo u dhalatay Ruushka ayaa la sheegay in lagu dhaawacay duqeyn isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayay ay ka geysteen caasimadda dalka Yemen ee Sanca. shaqaalahaasi ayaa waxay ka howlgalayeen xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Sanca. dhinaca kale ugu yaraan 6 qof oo isku qoys ah ayaa lagu dhaawacay duqeymahaasi ay isbahaysiga Sacuudigu ka geysteen dhismayaal ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada Sanca. telefishinka Al-Masiira oo ay kooxda Xuutiyiintu ay leeyihiin ayaa baahiyay in diyaaradaha isbahaysiga ay duqeeyeen dhismayaal dad rayid ah ay degan yihiin oo ku yaala magaalada Sanca, inkastoo isbahaysigu uu sheegay in diyaaradahooda ay duqeeyeen xarumo ciidan oo ku yaala magaalada Sanca. waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladaha Mareykanka iyo Iiraan kadib markii dowladda Mareykanka diyaaradaheeda dagaalka iyo maraakiibteeda ay ciidamo iyo hub geeyeen qaliijka. Iiraan ayaa ku eedeysay Mareykanka ka sii darista xiisadda ka dhex aloosan labada dal, waxayna sheegtay Iiraan in ay muujinayso isxakameyn inkastoo Washington ay ka baxday heshiiskii nuclear-ka sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan. Mareykanka ayaa tuhunsan halis kaga soo socota Iiraan, waxaana diyaaradihiisa dagaalka iyo maraakiibtiisa ay geeyeen hub culus iyo ciidamo qaliijka, taasoo kicisay xiisadda ka dhex aloosan Iiraan iyo Mareykanka. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta TV saaka waa naga inta.